السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafka iyo maamuuska badan waa walaalkiin Ismaaciil Diiriye waxaan dib u milicsan doonaa barnaamijkeennii Revit Architecture cashirkiisii 13aad waxaana ku qaadan doonaa roof dormer. First time waxaad soo kacsanaysaa barnaamijka Revitka, then waxaad u baahan tahay new project inaad tiraa waxaa leedahay architecture template. Okay, marka ugu horeyso markaan soo kicino Revitka waxaan sixi jirnay project unitka. Manage baa leedahay project unit lengthgaas anugu mitirkaas aan jeclahay adigu centimeter hadda ku shaqaysato ka dhigo 2 decimal place halkaana nooga dhig. Then waxaan leedahay unit sample-ka meter. Okay, area-daas waxna mitirada ku noqdeen kadib okay aan leedahay waa saxna marka. Then wallkaan oo tagaysaa waxay soo qaadaa rectangular wall. Okay, levelka waa noo samaysan yahay halkaa ka fiiri waa level 1 iyo level 2. kadib waxaan saaraynaa roofka ku dhuso haddaa rabto extrusion isticmaal anu laakiin roof by footprint gaasaan qaadanaya. wuxuu ku leeyahay level 2 you have created the roof on the lowest level, would you like to move to the level 2 ma saaraysaa ku leeyahay yes aan leedahay. marka koowaad overhangigan soxo aniga halkaas waxaa iga dhigtaa 70 ga dhig 0.7 maanta 70 aan ka dhigaynaa. big wallkaas waa wadataa sidiisoo noogu soo qaat halkaas adigoo geeskaas markaa saarto waxaad taabataa calaamada taabkiiga wallko dhan buu ku highlight gareynayaa dhacde maruu ku highlight gareeyay asaga dhan waa ku wada sameeyay dhinacyada dhan u dhaafeynaa divine slope dhinacyada dhan waa u dhaafaysaa. Okay then wuxuu ku leeyahay attach to the wall maan ka dhigaa roofkaaga yes aan leedahay. kadib bal 3D maraan fiirino this very good. marka dhinacan ayaan ku sameynaynaa roof dormerka. level 2 ka tag marka wallkaaga si aad u aragto waxaa ku dhufataa qaybtaas waxaa tagtaa visual style-ka waxaa ka dhigtaa wireframe. then wallkani waa kana wallkaas 20 ga aan wadanaa waxaa samaysaa marka wallka la soo qaado wallka tag rectangle wall soo qaado centerka ku raadi hal mar taabkiga taabo dhinaca sikio dhexda ku aadi hal mar. okay meelahaas oo kale kadib halkan wall oo gadaal iska cun delete dheh 3D ga bal fiir hal mar. okay wallskan aaday u dheer yihiin waxaan gaabinaynaa halkan waxaa ka dhigtaa meeshaas waxaa ku bedeshaa 3 meter. divide waxaa soo qaadataa
large property kan ku dhufo kan iyo kan la ekaysiin. derbigan waxaan saareynaa roof kala dul saareynaa. then waxaa soo qaadataa roofkan soo qaado roof by footprint, then 70 waa ku yahay meeshaas. qaybtan dambana isku xir marka. okay, waxaa sameysaa qaybtan midkan iyo midkan ayaa waxaan ka qaadaynaa defense halkii slopkan ka wareejinaynaa labadaas oo highlight kare. defense slopkan uncheck dheh kadib okay dheh. block to chat okay yes. weli sidii aan rabna maahan marka waxaa sameynaya kan ku kor dhufo. marka ku kor dhufato halkan waxaa ka dhigtaa 2 mitir balan ku jeegareyno. okay 2 mitir is so good. ama 2.5 aan ka dhignaa 2.5 ka dhig. okay marka saa dareemaysa qaybtan iyo qaybtan iskuma dhigina. waxaa soo qaadanaysaa join aa leedahay join roof. geeskaas afkaa hoos soo taagan iyo roofkan weynka anaa midkan yarka afkiisaan soo taagan iyo roofkan weynka isku dhejinay daadaas ugu darmeen. but laakiin still we have a problem kaasoo ah roofkaaga halkan waa inaad jirtaa si qaybtaas kor loo arko. okay hidden line nooga dhig. kadib adoo arka jagtigaas jooga doomarka tooro doormarka tooro qaybtaas doormarka ku dhufanaysaa. marka koowaad roofka weynka ku dhufo then wuxuu ku leeyahay big roof wall edges. qaybtan ku dhufo meeshan waxaa ka dhigtaa wireframe saa u aragti darbiyada. okay kan ku dhufo wallkaas gudaha ugu dhufo wallkan gudaha ugu dhufo kan banaankan gudihiisa ku dhufo. then wax kala sameyn isku xirxir. waxaa soo qaadataa trim stand kan iyo kan isku xir kan iyo kan isku xir kan iyo kan isku xir. okay kadib waxaa leedahay okay hal mar waxaa nooga dhigtaa marka realistic. qaybta hoosaan fiirinaynaa in shaqadii aan qabanay ay qabsoontay. okay very nice waa qabsoontay waa taas gooday. labadan loogooda darbiyadana ayagana waa jaraynaa. wax kala ha sameyn soo dhawe. halkaas markaa joogtid hal mar wallkaas taabo kadib waxaad tiraahdaa taabka taabo all walls waa taabatay. marka all wallskaas saddexda wall markaa wada doorato ana wax kala ma sameyn waxaan sameeyay halkan xabba kaliya ku aadiyay kaas highlight markuu ii saaran yahay ayaan taabta calaamada taabkiiga. taabkii hadda ku wareerta calaamadan leewa. waa ka calaamada taabkaas ay ku qoran tahay taabkii lahaa. hal mar wajiga uga aadi markaas uga aadiso waxaad taabataa calaamada taabkiiga hal mar highlight garayso. waxaad taabataa attach top base markaa ku dhufato then hal mar base ku dhufo marka kadib roofka korkiisa kelig dheh. shaqadan qabanay inay qabsantaa mar dib u fiirino. very nice waa ku tirmay ayagana roofka ku tirmay. halkan daaqad gelina marka qaybtaas si iftiin loo helo iftiin dartiisa loo sameeyay iftiinka si loo helo
daaqada halkaasaan gelinayna window ku dhufo kadib take intaan ugu weynaa u malaynaya 250 mitir laabtan direct edit kasoo bedel meeshaan duplicate 200 xogaaga meeshaan direct 2 mitir ka dhigo diska official cell ka bal hal mar aan fiirino halkaas akugu ekaado hadda kadib hadda u baahato ama aragto roof doomer sidaas ayaa u sameyn doontaa sidoo kale qaybta sharafta badan waxaan idin ka codsanayaa inaad saaxiibadeen u share gareysaan haddaad markaan ugu horreysana daawatana fadlan subscribe saar sidoo kale like saar videoga sidoo kale asxaabtaadana la wadaago u share gare aad iyo aad baa u mahadsantihiin teeda kale waxaan rabaa inaan kugu daro roofkan dhowr cashar hore uga soo sameynay fadlan si aadan roofka ugu wareerin casharadan ka horreeyay oo more detail ah si faahfaahsan loo soo sharaxay dib u daawo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waqtiga ha idin wacnaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.